wafdiga madaxweyne farmaajo uu hogaaminayo oo soo gaaray magaalada Gondar ee dalka Itoobiya waxaa garoonka magaalada Gondar ku soo dhaweeyay ra'iisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed iyo mas'uuliyiin kale ka tirsan dawladda Itoobiya. ujeedada socdaalka madaxweyne farmaajo ee waddanka Itoobiya ayaa ah ka qaybgalka shir looga hadlayo arrimaha shucuubta geeska Afrika oo maalinta bariye ka furmaya magaalada Bahradar ee caasimadda ismaamulka Amxaarada ee waddanka Itoobiya. shirkan oo mid saddex geesooda ayaa waxa madaxweyne farmaajo ku wehelin doona madaxweynaha waddanka Eritrea Isaias Afwerki iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed iyadoo dib loo eegi doono waxyaabihii ka soo baxay heshiiskii iskaashiga ee hogaamiyaasha wadamada geeska Afrika bishii Sebtembar ee sanadkan ku dhexmaray magaalada Asmara ee xarunta waddanka Eritrea. dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga wadamada gobolka u aragta mid muhiimad gaar ah ugu fadhiya shucuubta ku nool geeska Afrika gaar ahaanna sidii gobolka looga sifayn lahaa kooxaha ku kobca qalalaasaha ee hortaagan in gobolkan uu sameeyo horumar ballaaran. Ali Baashi Cabdullaahi warbaahinta qaranka magaalada Bahradar ee waddanka Itoobiya.